xuska maalinta biyaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. xuska maalinta biyaha ay si wada jir ah soo qaban qaabiyeen wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sool iyo waliba hay'adaha SVO iyo SRO waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya barasaabka gobolka Sool, barasaab ku-xigeenka, mas'uuliyiinta hay'adaha kala shaqeeya dhanka biyaha wasaaradda horumarinta biyaha iyo waliba dadweynaha tiro badan. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay madaxdii mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Sool oo ka warramay doorka biyo la'aaneed ee ka jira guud ahaanba gobolka Sool. horta maanta intiin waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynaya dhaganuglaanta markaan diyaarnay aad noo dhaganugulaateen bulshadiin ayaan aad iyo aad idinku hambalyeynaya waxaan leenahay jazaakallahu khayr. waxaan ka hadlayaa gudoomiye anigu hawdiyalba waan tagay gobolka hawdiya nugaal markaad nugaal marayso waxay koonayaan biyo la sii biyaanu doonayna war nugaal baaba joogtaan maxad biyaha ku rabtaa kuwii caruurta caanaha loogu walaaqi lahaa baanu la'aan habeeyna kuwii caruurta caanaha loogu qasi lahaa baanu la'aan hawd bartanka markaad tagtana jawaabta lagu weydiiyaa waxa weeye biyo ma haysaa jawaabta lagu weydiiyaa waa biyo waxayaguna halkaasi ka hadlay laba mas'uul oo ka socda hay'adaha iyagu kala shaqeeya SRO iyo SVO oo dhanka biyaha kala shaqeeya wasaaradda biyaha. SRO iyo SVO soo sheegay injineer Axmed Calacal waa qolada hadeer hawshan soo qaban qaabisay oo ka shaqeysay waana dadka hadeer u dhoondaloolo xagga biyaha waayo xilligii hore ay MBA ahayd inta eelo riyo laga qoday gobolka xisaab ma lahayn sanad kasta mid hawd iyo mid nugaal baa la qodi jiray inkastoo hay'adda hadda barnaamijkeed ay u bedeshay dalka waxa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta sababaha biyo la'aantu uga jirto baana waxa kamida waxa jira dhul gobolka kamida oo muddo 5 sano aan wax roob helin waxa kale oo jirta dhulkii roobka yari helay ama roob raxmaadka yari sanadka ka daay oo dad ka badan fuuleen ceelashii iyo maxaan raahdaa oo la isugu soo guuray iyagana waxa ka dhacday shortage waa ka dhaco biyihii way ka yaraadeen. annagu KSVO ahaan qayladhaantii wasiirku sheegay waanu soo dhaweynaynaa wasiirku waanu u gudbinay hay'adaha relevant-ga la ah oo ama la xidhiidha biyaha clusterkii u dambeeyay ee aanu ka qayb galayna haddana SVO abaarta baan iyo biyo la'aanta ka jirta gobolka waanu bandhig. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire isagoo ugu baaqay hay'adaha caalamiga iyo kuwa dawliga inay gacan mugla ka geystaan biyo yaraanta baasan ee ka jirta guud ahaanba gobolka Sool. xafladii ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda horumarinta biyaha maalinta biyaha adduunka runtii waa maalin weyn xaqiiqatan dadku waxa imika waqtigan jilaalka la isweydiinay ugu badan waa si biyo loo helaa wax amaanaya madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirtee madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirtaan malinaya maanta biyo la'aanta wasaaradda biyuhuna way ka warhaysaa qaranka oo dhan uu ka warhayaa. maalinta biyaha ayaa guud ahaanba laga xusay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool. waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.